السلام عليكم. muuqaalkeenan maanta waxaan kaga hadlaynaa wadamo aan lahayn masaajid lagu tukado. maxaad ka taqaanaa 7 wadan ee caalamka ee aan lahayn hal masjid ee lagu tukado? magacaygu waa Cabdixafiid Bashiir. ku soo dhawaada muuqaalka. masaajida masjidku waa dhismaha ay muslimiintu ku caabudaan ama ugu cibaadaystaan Allah subhanahu wa ta'ala taariikhda islaamka oo dhan. waana mid ka mid ah astaamaha diimeed ay leeyihiin dalalka muslimiinta. maalmahan gaar ahaan dalalka muslimka waxaa laga helaa masaajida ku dhow jid kasta, taas oo ka dhigaysa arrin fudud in muslimiintu ay soo xaadiraan 5 salaadood. masaajida galbeedka waxaa ku yaala qaybo muhiim ah oo ka mid ah xarumaha islaamka oo ay sidoo kale ka kooban yihiin waxbaridda iyo tashiilaadka bulshada. masaajida ayaa leh qaab kasta iyo qaab walba, waxayna ku kala duwan yihiin gobol ilaa gobol marka loo eego ifnaanta dadka muslimiinta ah ee ku nool deegaan gaar ah. muslimiintu waa hore iyo xitaa maanta waxay isticmaalaan farsamo yaqaanada maxalliga iyo kuwa naqshadayaasha si ay u abuuraan masaajidyo qurux badan. muuqaalkeenan maanta waxaan kula wadaagi doonaa 7 wadan oo caalamka ee aan lahayn masaajid. wadanka koowaad waa dalka Slovakia. Slovakia waa wadan buuraley ah oo aan bad lahayn kuna yaala bartamaha Yurub. juqraafi ahaan Slovakia wuxuu la wadaagtaa wadamo badan oo dhaca qaaradda Yurub sida Poland, Hungary iyo wadanka Ukraine. Slovakia waa mid ka mid ah wadamo yar oo Yurub ah oo leh sharciyo adag oo ka dhan diinta Islaamka. hadda Slovakia waa dalka kaliya ee xubin ka ah midowga Yurub oo aan lahayn wax masaajid ah. tiro yar oo muslimiin ah oo dalka ku nool ayaa kaliya ku dukada guryo kiro ah ama guryo ku meel gaar ah oo lagu dukado. wadanka labaad Estonia. Estonia waa wadan ku yaala waqooyi bari ee Yurub. wuxuu xad la leeyahay badda Baltiga, wuxuuna u dhaxayaa Sweden iyo Ruushka. Estonia wuxuu la wadaagtaa badda Baltiga ee waqooyi, Ruushka oo bari ah iyo Latvia oo koonfurta ah. magaalada caasimadda ah Estonia ee Tallinn waxay ku taalaa dhinaca waqooyi ee xeebta. Estonia waa mid ka mid ah wadamada Yurub ee ay ku nool yihiin muslimiinta ugu yar. ma jiro masaajid rasmi ah oo hadda ku yaala dalkan. muslimiinta dalka ku nool ee aan tirada yarayn ayaa inta badan waxay ku dukadaan xarunta dhaqanka islaamka ee Taras oo ku taala caasimadda Estonia ee Tallinn. dalka saddexaad San Marino. San Marino waa mid ka mid ah dalalka ugu yar adduunka, waxaana ku hareeraysan Talyaaniga. waxaa la sheegay inuu yahay jamhuuriyadda ugu da'da weyn adduunka. San Marino dadka muslimiinta ee dalkan waa kuwa aad u yar, si la mid ah ma lahan wax masjid ah oo lagu dukado. dalka muslimiinta ee dalkan waxay inta badan aadaan masaajidda Forlì iyo Ravenna ee ku yaala wadanka dariska ee Talyaaniga si ay ugu soo cibaadaystaan. dalka afraad Monaco. Monaco waa dalka labaad ee ugu yar adduunka, waxaana ka horeeya Vaticanka oo kaliya. waxaa maamula qoyska caanka ah ee Grimaldi, waana wadan xeebeed qurux badan oo Yurub ah, kaas oo soo jiita indhaha dalxiisayaal badan oo yimaada xeebta dalkan sanadka oo dhan. Monaco hadda waa mid ka mid ah dalalka adduunka ee aan lahayn wax masjid ah. muslimiinta cibaadaysanaysa ee kaliya ayaa aada wadda ka baxsan dalka si ay u helaan xarun cibaadaysi oo ku taala Faransiiska oo ah wadan u dhow dalkan Monaco. wadanka shanaad Vatican. magaalada Vaticanka oo ah dalka ugu yar adduunka waxay ku taalaa bartamaha Roma, waana halbowlaha nolosha Katoliga. waxay soo jiidataa malaayiin qof oo ka kala yimid ama markaasi ka kala imaado adduunka, kuwaas oo u yimaada sanad kasta si ay ugu soo aruuraan salaada oo ay u raadiyaan barakada boobka ama wax ugu yeeraan baadariyaasha Vaticanka. hadda magaalada Vaticanka ma jiro masaajid ku yaala, sidoo kale ma jiraan xarumo bulsho. tashiilaadkaas waxaa kaliya oo laga heli karaa dalka dariska ee Talyaaniga. wadanka lixaad Uruguay.
Uruguay waa dalka Isbaanishka ugu yar ee ku yaala koonfur bari ee qaaradda Ameerika. Uruguay waxay xad la wadaagtaa badweynta Atlantic oo dhanka koonfureed ka xigta, Argentina dhanka galbeed, iyo sidoo kale waddanka Brazil oo ka saaran dhanka waqooyi. waxaa jiro tiro yar oo muslimiin ah oo ku nool Uruguay. dalkan ma jiro masaajido. safaaradda Masar ee ku taala magaalada caasimadda oo ah dalka Montevideo ayaa adeegta ama markaas diyaarisa qol lagu dukado salaada Jimcaha bedelkeed inta lagu dukan lahaa masjid, maadaama dalku lahayn wax masjid ah. waddanka toddobaad, São Tomé. São Tomé waa waddan jasiirad ah oo ku hadla luqadda Boortaqiiska, kuna yaala badweynta Atlantika ee ka baxsan xeebta galbeed ee dhulbaraha Afrika. waa waddan aad u yar. caasimadda dalka 1975 ayay xornimada ka qaatay Portugal, waana São Tomé. in ka badan 95% dadweynaha São Tomé waa Masiixiyiin. Roman Catholic waa diinta Masiixiyadda ugu badan dalka. si kastaba ha ahaatee, ma jiro hal masjid oo ku yaala São Tomé waqti xaadirkan, taas oo ka dhigaysa waddanka kaliya ee Afrika ku yaala ee aan lahayn hal masjid. haddii aad danayso muuqaalada noocan oo kale ah, fadlan ku soo biir kanaalkan Cilmi Baaris oo taabo calaamadda subscribe-ta si aad ula socotid muuqaalada kale ee aan soo geli doono. waad ku mahadsantahay daawashadaada.